السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين وناكسن صاحب يال أنيقا هبين أي تهي أديقا هدي مالين كوتا هانا مالين وناكسن حيال الدنيا دان ساعده هذا ويكال دوينهين مالمها أنا سيدان أقنا هاي كروني وحال الشيء هاي أديقا إداوانا هاي أما كروني ودارتا إيوه شكرا هاي يا لكن واكسور توان ويدي كرامك inay dhahaan laga yaabaa corona waa isku gudbi karaa laakiin cid ka helaysa ma laha ilaahay anaga dulqaado cudurkan caawa maxaan ka hadli doonaa saaxiib yaal caawa waxaan ka hadli doonaa muuqaaladii hore noo socotay xanaheennii mashiinada iyo horumarka anoo jecel mar walba horumar inaan wada gaarno oo wada guulaysano qasnadaha in lacagta laga soo bixiyo waxaan mar walba la hadlayo waa dadka lacagta haysto lacagtiina ha idiin shaqayso haddii kala akoon si ugu jirto iyo qasnada iyo meelaha ugu jirto hadhowtii ka dhinta waxa matarayso waxa loo baahan yahay lacagtaada inay ku shaqeyso saas darteed caawana waxaan ku hayaa mashiin kale mashiinkaas muxuu yahay ama makiinad soo saarto wax muhiim ah wax dukaan walba yaalo wax guri walba looga baahan yahay waxaasi maxay yihiin waa yaanyada waa aragtay yaanyada shiishiid mid loogu yeero oo la soo habeeyay kow iyo yaanyadeena caadiga ah oo caag lagu soo shubay adii yaanyo leewa tomato lagu soo qoraabo waa lagu soo sameeyna nin faca soo sameeyay kadib waa lagu soo dhoofina ay dadku waa gadanayaan aad loo jecel yahay marka waxa badbaadi karo wadankeena iyo horumarka wadankeena ka shaqeyn karo waa ganacsatada waa ninka lacagta haysto mashiinkan aa u jeedid waa raqiis wuxuuna soo saarayaa yaanyada saas darteed mashiinkan kuu muuqdo soo saarayaa yaanyada wuxuu ka dhigayaa sida muuqaalka ka muuqato marka hore waa yaanyo diyaarsan oo marka hore beerta laga soo gurayaa sida kuu muuqato muuqaalkaba aad si fiican u daawan doonto dhammaadkiisa si fiican u daawan doontaa insha allahu tacaala waa la soo diyaarinaa waa la dhaqayaa waa la shiidayaa waa la diyaarinaa alaabteedii oo meeshii lagu shubi lahaa koombooyinka wixii dhan diyaar waa macnaha mashiinkan waa mashiin weyn lacagtiisa way badan tahay oo waa $180,000 oo marka mashiino kale oo ka raqiisna way jiraan laakiin midkan weyn oo $185,000 oo ah ayaa aniga jeclaa lahay xataa in shirka lagu noqdo ama hal qof oo soo iibsado oo ilaahay lacag oo siiyey maxaa yeelay faa'iidooyin badan oo sameynaya baawurkii weynaa wixii dhan oo beerta ka soo guri lahay wixii macnaha shiidi lahay waxa soo idil ayuu wataa waa alaab diyaarsan halkii marna wuxuu sameyn karaa yaanyo aad u fara badan ayuu sameyn karaa marka mashiinka kaliya lacagtiisa saas ay tahay shaqaalaha ku baxaayo iyo qarash ku baxaayo waxa soo idil waa isla xisaabin karnaa laakiin mashiinka ku muuqdo in la keeno ayaa muhiim ah mashiinka in marka hore soo gadato ayaa muhiim ah shaqaale ma weynaysid haddii aad u baahan tahay taas waan ka caawin karaa shaqaalaha meesha joogan iyo sida loola xiriiray waxaas dhan aniga ayaa u diyaarsan adigana waxaan rajeynayaa haddii aad u baahan tahay inaad ila soo xiriiri doonto commentiga inaad iigu reebi doonto qoraal ayaan dareemi doonaa insha allah waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka like saar haddii inaad ila soo xiriirto u baahan tahana commenti iigu reeb ra'yigaaga iyo fikirkaaga waa haddii aad u baahan tahay haddii aad u baahneen laag saar si uu muuqaalkan u arko qof u baahan laag lacag ma ahan sidoo kale subscribe saar muuqaalka subscribe lacag ma ahan adiga wax kaama dhibayso anna waxay ii taraysaa muuqaalka oo aad laag saartana waxay gaaraysaa dad fara badan haddii dad fara badan gaartana hadhowtii faa'iido ayaa laga helayaa waddanka horumar ku gaarayo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka waa anigoo Axmed Deeq Salaad kulana ah oo kuleh sidaa iyo nabaadiina noola kulantee amaana Allah